إلهي ديق سنميدي سوحا كمدا هل هبين أو أدقما صدح سديتان سنة وهبين كليلة القدرقة وعن كجرنو طبعا كدنبه وحويا الله إنو شيء إنو كمديها أما وكجر هبين نديد إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كوحو كله خير من 1000 شهر هبين كاسي وحو كأجر بدني هاي أو كخير بدني هاي كون بلوت وفرسو كفايديسيسو وحو كخير بدني هاي كفايديسيسو كون بلوت كون كبلوت marka inta ay tahay marka noo xisaabino sanad u bedelnaa xawayaan 3 sano loo sawiro qof 3 sano cibaado sax ah 3 sano oo salaad sax ah 3 sano oo soon sax ah oo la aqbalay ah 3 sano oo quraan akhri sax ah oo la aqbalay ah 3 sano oo sadaqa sax ah oo la aqbalay ah 3 sano oo dhikriya oo la aqbalay 3 sano oo waalidka baari loo ahaa oo la aqbalay waxaas dhan cibaado kasta yani ay u dhigan halka habeen oo lagu waafajiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryana inuu waafajiyo habeenkaas nabigu wuxuu tilmaamay alayhi salatu wasalaam inuu ku jiro tobanka dambe si gaara tirada isdheer 12 oo xalay aha 13 25 27 29 la doofirso nabigu alayhi salatu wasalaam uu garanay ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmadu iluusiyo waxa dadku inay kala baxaan tobankaas oo dhan in iska dadaalo habeenku sida inoo qoran diinta uu guurguuraa sanad meel buu tagaa marka waxa dhici karaya sanadkii hore inuu ahaa 12 sanadkii inuu yahay 29 hawduna sanadkii inuu yahay 29 sanadkii hore uu ahaa 12 saas oo kale yani inuu ka faa'iideysano oo kaga faa'iideysano dhammaan acmaasha khayrka oo dhan yani dadkeena waxa u sawiran marka isla soo gala soonka ama ramadaanta in waxa ramadaan laga faa'iideysta marka soonka laga tago ay tahay taraawiix iyo tahajjud tobanka dambe ma aha sida waxa weeyaan ajr oo dhan waxa khayr laga helo oo dhan weeyaan wax wacan yani qiyamul layl salaada qof inuu kaco waxa kamid ah wanaaga inuu khayr inuu quraanka akhriyo waxa kamid ah inuu dhikriyo waxa kamid ah inuu ducaysto habeenadan aynu aad ducaysan dhowrka cibaado ee ay tahay in ilaalinay kamid tahay salaada tahajjudka ama salaada leyshu qofka taraawiixda wuxuu koobsan karaa tahajjudna wuxuu koobsan karaa labadoodana israacin karaa waayo salaatu leylun salaatu leyshu tiro ma laha qofku si inta intuu doono ka dhigan karaa waayahay wuxuu muhiim u inuu ku soo gabagabeeyo intaanu seexanin witr iyo tiro kala dhiman ku soo gabagabeeyo taa marka laga yimaado aad waa inuu ducaysanaa habeenada wax allaale iyo waxa haminka ugu haya wax allaale iyo waxa ku culaysanaya wax allaale iyo waxa maanka ka dhex guuxaya ee aad doonayso wax allaale iyo waxa muslimiinta la jeceshahay habaa ducada lagu aqbalo waxa kamid ah qofku inuu walaalkii u duceeyo qof aan ogeyn inuu maartay ku halqabsado dhahay ilaahu hebel ama heblaayo waxaasi wuxuu isagu doonaya tabcan maxaa dhacay marka in malaa'iktu dhahaan ilaahay isagana qofkan duceynaya de walaalkii u duceynaya ama walaashii u duceynaya ilaahu isagana inta uu duceeyay in ka badan uu duceeyay malaa'igtana de ducadoodu waa maqbuulo waa la hubaataa laakiin teena lama hubo in la aqbalayo in kale waxa dhici kara waxba lagu aqbalay in ka tagnay waxba ducada lagu aqbalo sidoo kale waxa kamid ah qofku markuu duceysanayo inuu qiblada u jeesto inuu weysaysto inuu de qasab ma yani inuu weysa qabay qasab ma laakiin waa waxyaabaha si kordhiyeen la aqbalo inuu marka hore ku bilaabay ilaahay inuu amaano subhanahu wa ta'ala mar labaadkana inuu nabiga amaano mar saddexaadkana inuu sheego taagdaridiisa ilaahay waxaan ahay adoon laanta aan waxba qabsanin xoogayga xeeladayda ee dhammaan aqoonteeda aragtideeda rabbi waxa leeyahay waxay tarayaan laanta ma jirto mar afraadka inuu sheegto waxa baahi ah ee culays ku maartay gubaya ee doonayo bal u fiirso Aisha radiyallahu anha baa weydiisay nabiga kaleey sallallahu alayhi wasallam rasuulka Allah hadii ilaahay iba waafajiyo habeenkan leeyatul qadriga maxaan dhahaa nabigu ducuu u sheegay u fiirsaada ma ku oranto ma ku quraan akhri ducuu u sheegay nabiga kaleey sallallahu wasallam waxa tiraahdaa Allahumma innaka afuwun kariimun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahay waxa tahay ilaah wax afiya oo kariim oo deeqsi oo xaliim oo dulqaad badan ilaahu idin bataaf saaxiibayaal hal habeen baa tagay caawa iyo inta dambe ee dhimanba aynu uga faa'iideysano sida ay tahay hadda salaad noqoto hadda quraan akhris noqoto ducaa noqoto aad waxaan mar labaad idinku celinayaa ama inoogu celinayaa dhammaanteenba ducadeenna aadu ilaalino waayo adoomada ciifaynahay haddana ilaahay arrimihiina u bandhiga waxbay suu ka nagaagi maayaan wanaagsane waa ilaahay salaam